Assalaamu calaykum. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waa sheekadii kun habeen iyo habeen iyo qaybteedii saddexaad. Sheekadu qaybteedii labaad waxay noo maraysay markii wasiirkii gabadhiisii ku yiri ogow gabadhaydii inuu jiri jiray nin beeraley lahaa xoolo dhaqato ahaa. Waxa uu lahaa xaas iyo carruur. Ninkaas Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu deeqay aqoonta luqadaha xayawaanka iyo shimbiraha, laakiin hadduu ka xog warramo wuu dhimanayay. Ninkaa beeraley lahaa waxa uu lahaa dameer iyo dibi. Dameerka shaqadiisu waxay ahayd inuu ninku raaco meesha uu doonana ku aado, halka dibiga shaqadiisu ahayd in subaxii ilaa galabtii beerta loogu falo. Maalinkii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo meel iska fadhiya, cawsna cunaya, biyana agtiisa yaalaan. Wuxuu ku yiri way ku dhacantay adiga, anigu waan daalay oo tabcaan ayaan ahay sidii beer laygu falayay, laakiin adigu halkan ayaad caws ka ruugaysaa, waxa shaqo badanna ma qabatid. Markaas ayuu dameerkii ku yiri tala anigaa ku hayee, berri marka lagu yimaadee xadhiga tiirka yaambada beerta lagu falayo qorta lagugu xidho iska fadhiiso, hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan. Haddii aad kacdana mar kale fadhiiso. Markay kaa dareemaan tabar darri waxay kuu keenayaan bal iyo caws, ha cunin. Cuntada iyo cabitaanka jooji ilaa 2 maalmood, sidaas ayay shaqada badinna kaaga yaraanaysaa. Ninkii beeraley ahaa markuu maqlay sheekadaas aad ayuu yaabay. Subaxii ku xigtay markii la gaadhay ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kastoo la isugu dayana waa kici waayey. Markaas ayuu ninkii beeraley ahaa yiri dameerka ha la wado oo beerta ha lagu falo. Markaas ayaa dameerkii la waday, maalinkii oo dhanna beerta lagu falayay. Galabtii markuu dameerkii ku soo laabtay xeradiisii waxa uu mahadceliyey dibigii abaalka uu sameeyey iyo talada uu siiyey, laakiin dameerkii muusan jawaabin, isagoo ka xun aadna uga shalaynaya inuu taladaas isagu siiyey dibiga. Maalinkii labaad ninkii beeraley ahaa waxa uu yimi dameerkii isagoo dibigii faraha ka qaaday. Mar labaad ayaana beertii lagu falay. Galabtii isagoo tabcaana markuu ku soo laabtay xeradiisii waxa mar kale uu mahadceliyey dibigii, laakiin dameerkii markaan wuxuu ku yiri dibigii anigu waan ku nasteexayn, waayo waxaan maanta maqlayay ninkii beeraleyda oo shaqaalihiisa ku leh haddii berri dibigu kici waayo waxaad u geysaan kawaan lahaa si uu u qalo, wax faa'iida laguma qabee mar hadduu uusan beerta lagu fali karin. Markaas ayuu dibigii hadalkaa maqlay ayaa uu isku diyaariyey inuu howlgal bilaabo. Ninkii beeraley ahaa markuu maqlay sheekadaas aad ayuu la yaabay. Subaxii markii la gaadhay dibigu waxa uu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo shaqo isku diyaarinaya. Subaxii markii la gaadhay ninkii beeraley ahaa wuxuu arkay faqfaqda ka muuqata dibiga iyo sida uu shaqo diyaar ugu yahay. Aad ayaanu u qoslay. Naagtiisii oo meelaan ka dhoweyn taagnayd ayaa waxay tiri maxaad ku qoslaysaa? Markaas ayuu ku yiri ninkii haddaan kuu sheego waan dhimanayaa. Waxay tiri ii sheeg xataa haddaad dhimanaysid. Markay ku adkaysatay ayaa uu ninkii isugu wacay dadkii suu dardaarmo. Dadkii ayaa isku dayay inay in badan naagta celiyaan, laakiin way ka diiday. Waxayna tiri waan ogahay anigu igu qoslayaa, ha sheego wuxuu ku qoslayo haddii hadda uu dhimanayo. Ninkii beeraley ahaa naagtiisa aad ayuu u jeclaa, wuxuuna go'aansaday inuu sheego. Wuxuuna aaday guriga si uu 2 ragcadood oo sunnah u soo tukado. Isaga oo ku dhex jira gurigii ayaa wuxuu maqlay aygii guriga joogay oo diigii la hadlaya. Diigow, adigu halkan ayaad 50 digaagadood iska dhex fadhidaa, saaxiibkeenna waa dhiman rabaa. Markaas ayuu diigii yiri wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagtiisa wuu edbin lahaa. Anigu 50 digaagadood aad u jeedo haddii ay mid xanaaqdo waana edbiyaa ilaa ay ka toobad keento. Haddana saaxiibkeen haddii uu naagtiisa edbiyo way toobad keeni kartaa. Ninkii beeraley ahaa markuu maqlay hadalkaas ayaa uu kadib soo baxay, wuxuuna u yeedhay naagtiisii, wuxuuna ku yiri qolka soo gal, gooni ayaan kugu sheegayaa. Markay qolka soo gashay
ayaa uu si daran u garaacay ilaa ay ka qaylisay waanay toobad keentay. markaas ayaay dadkii aad ugu farxeen maadaamuu ninkanu ka badbaaday dhimasho mar labaad. markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii ku yidhi, aniguna sidaa dameerka oo kale ayaa inay kugu dhacdo aan ka cabsanaya, si inta aad isleedahay dad kale badbaadi naftooda, naftaada halisa gelin. markaas ay Shahrasaad maqashay sheekadaas ayaa waxay tidhi, wixii dhacayaanba ha dhacaane boqorkii guuri anigaa diyaar u ahay. sidaas ayaana gabadhii loogu guuriyey boqorkii, waxayna gabadhii Shahrasaad ahayd lasii dardaarantay walaasha iska yar ee Dunyasaad, iyadoo ku tiri, marka boqorka la ii geeyo waxaan ka codsanayaa inuu ii keeno walaashay oo iga yar oo aanad u jeclaa, si ay u heligo noqoto oo si macasalaameeyo. haddii uu iga ogolaadana waxaad dhahdaa, aabbayoy maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii cajiibkaha mid ka mida sheekooyinkaagii hallaasiga ahaa, maadaama aad berri naga tegaysid. aniguna insha allah sheekadii aan boqorka ka takhallusi lahaa ayaan bilaabayaa. kadib gabadhii sida ayaa lagu gelbiyey. markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrasaad ahayd ooysay. markaas ayuu boqor Shahiraan ku yidhi, maxaad loo ooyeysaa? waxay tidhi, waxaa jirta gabadh iga yar oo walaashay ah, waxaana rabaa inaan sabootiyey ogolow. markaas ayuu ogolaaday. kadib markay timid Dunyasaad ayay hab siisay iyadoo sabootinaysa. markaas ayay Dunyasaad tidhi, abbaayoy maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii hallaasiga ahaa mid ka mid ah. markaas ayay Shahrasaad tidhi, waan kaaga sheekaynayaa haddii uu boqorku ogolaado. markaas ayuu boqor Shahiraan hadalkaa maqlay ayaa uu yidhi, bal ka sheekee sheekooyinkaagii hallaasiga ahaa eed sheegaysid mid ka mid ah. halkaa haynoo joogto sheekadii qaybtii 3 ee sheekadeena Kun Habeen iyo Habeen.